beesha biimaal culmadooda iyo gudoomiyaalkooda waxgaradka marka imaani dadka afgooy iyo xamar fadhiisahayo oo beesada qaadahaye marka imaani beesha biimaal gudooda ka timid sidii aan u taageeri lahayn aan garab iyo gacan iyo gaashaan aan ugu naqlahayn nabadii ay noo keeneen ay noo soo sheegeen ay na soo gaarsiiyeen gudoomiyaha ama gabeertooraha gobolka Shabeellaha Hoose iyo General Waafow ma nala qaadeen haddii ururkii habeenka gabdhihii beesha biimaal ma nala qaadeen waa qaadnay wixii ay noo keeneen gabeertooraha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Najax iyo General Waafow waa qaadnay dumarka waxaan ugu faraxsanahay maanta farxad weyn halkan noogu socoto aad iyo aad reereen aan u wadanaa teeda kale wax badan baan dhibaato qabnay laakiin dhibkii waa la soo tirtiray waxaan maanta guddoonsiisay 6 dhibaatadii aan wadnay rafaadka nagu soo waday dadkii burburkii dagaalkii ee magaaladan wax ka qaxeen guryaha laga gubay maanta Ibrahim Najax iyo mudane Cabdullaahi Waafow nabadda ay soo qaateen weligeed nabad doonan nahay nabadda haalankan waan ku faraxsanahay gobolka Shabeellaha Hoose maanta kadib waxaan ku baaqaynaa wal hortaayna lagu baaqi nabad waxaan taageersanahay nabadda ay soo qaadeen madaxdayni oo ay ka mid yihiin xildhibaanada salaadiinta General Waafow wixii ay noo soo qaadeen oo nabadda ayaan taageernaa waxaan ku taageernaa dad buuxdo iyo dhabnahay naga tahay gudoomiyaha Waafow iyo gabeertooraha gobolka nabadiin u soo qaaday xamar ay na soo waceen nabadda ay soo gaarsiiyeen ma qaadini dawladda dhexe waxa uu sheegaa nabadda aan qaadina ina garab aynu siiso inaan taageeraa in saddex gobol waxaan ka codsaa nabadda aan qaadina inaan u taageeraa